maanta oo ay tahay 3 bishii 7 sanadka 2023 waxaan halkan ku shaacinaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkii socday 2 maalmood ee u dhaxeeyay guddiga samatalis ee beelweynta garxajis ee uu hogaaminayay imaatikoodii halkan suldaanka guud ee Somaliland Suldaan Daawud iyo beelweynta Habarawal xubno salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo aqoonyahanka matalayay shirkan oo xubnaha guddiga ee labada beelood ee ka socday ay kaga hadlayeen arrimo dhaqan iyo iskaashiga iyo xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada beelood ma uu ahayn marnaba shir siyaasadeed ama shicir loogu tashanayay ama cid lagu durayay ama cid wax laga sheegayay waxa ay labada beelood ay kaga wada hadleen danaha iyo xiriirkii walaaltinimo iyo wadajirka labada beelood shirkan oo qodobada laga hadlay ay aad u koobnaayeen waxa ugu horeeyay bal in dib loo eego xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada beelood ay lahaayeen ee taariikhiga ahaa in wax la iska weydiiyo dibna loo eego waxyaabihii qaldamay ee ka qaldamay xiriirka soo jireenka ahaa ee labada beelood ee muddooyinkii dhexe soo baxay in labada beelood guddiga raadinaysa ay matalaysa ay u raadiyaan bal ay ka fikiraan oo ay ka wada hadlaan sidii xal loogu raadin lahaa loo wanaajin lahaa waxyaabaha qaldamay iyo in la isla garto shirarka xiga iyo meelaha lagu qaban doono iyo halka looga dhaqaaqi doono shirarka xiga gabagabadii shirkan waxaa ka soo baxay 5 qodob oo kala ah kow in labada dhinacba kolkii ay muddo 2 maalmood ay dood iyo falanqayn dheer yeesheen ay isla garteen horta shirkan inuu noqdo gogol xaad una ahaa shir gogol xaada in labada beelood ay si wada jir uga shaqeeyaan soo celinta xiriirkii wanaagsanaa ee wada noolaanshaha isdhexgalka iyo wada dhaqanka labada beelood in si wada jir ah looga shaqeeyo amniga xasiloonida adkaynta iyo difaaca qaranka jamhuuriyadda Somaliland in labada beelood halkaa ka sii wadaan waa qodobka afraad in labada beelood halkaa ka sii wadaan shirka noocan oo kala ah ee lagu wanaajinayo laguna islaaxinayo xiriirkii labada beelood ee dibna loogu soo celinayo in halkaa ka sii wadaan kana sii ambaqaadaan gabagabadii guddiga samatalis ee beelweynta garxajis ayaa waxa ay soo jeedisay oo ay ballan qaaday inay fidiso gogosha shirka xiga waxaanay soo sheegi doonaan halka goobta iyo waqtiga shirka la qaban doono halkay dhinaca kalena si mug iyo miisaan la uga aqbaleen shirka iyo shirarka kale xigaba inay isugu yimaadaan shirku intaas ayuu ku soo gabagaboobay